shirkii Balcad ee xukuumaddu isugu timid saddexda gole shirkaasi wuxuu ku saabsanaa shir wada tashi wax la isku raacayna maaha wax yaalana maaha wax qorshaysanna maaha in aan wada hadal la gallo Soomaaliland noomana taalo Soomaaliland wada hadalkeedana wax badan baa ka sokeeya waa maqlayay niman wasiir ah oo maamulkaas dad aan oran karo maamulka Soomaaliland bay ka tirsan yihiin oo leh waanu soo dhaweynaynaa wada hadalka Khaatumo ay ogolaatay waxaan rabaa ummadda reer Khaatumo inaan u cadeeyo wax wada hadal la yiraahdo oo wada hadal ah oo socda oo annaga iyo Soomaaliland naga dhaxeeya ma jiro laakiin Soomaaliland waxa loo yaala iyana waa og yihiin annana waa ka warqabnaa dalka kan wada hadal kuma aysan iman xabad bay ku yimaadeen waxaan filayaa inay xabad kaga baxayaan runtii dadku su'aalo badan bay isweydiinayeen muddooyinkii la soo dhaafay fawaaxishkii ama foolxumadii ka dhacday baarlamaanka dhexdiisa anigu waxaan leeyahay baashi haddeer ma dhiman maanta ma ahayn marka uu dhintay waa maalintii uu siyaasadda goosadka ah ee dadkiisa lagu dhibayo ee dadkiisa lagu bahdilayo lagu sharafshidka lagu samaynayo markii uu go'aansaday inuu ka shaqeeyo buu dhintay haddeer ma dhiman baashay inta la maqaanka ah ka shaqeysa maxaan ku raadaay maamulka Soomaaliland u shaqeysa anu dadaan noolayn oo laakiin maxaan ku raadaay haddana uu soconayo oo hadlaya baan u aqaanaa inay yihiin baashi mar hore uu dhintay haddana mar labaad buu sii dhintay waana sii dhiman doonaa taa mid ka xun haddeerto ka dhacday baarlamaanka gudihiisa waanu ognahay codadkii laga duubay xubnaha baarlamaanka ee meesha ku jiray iyo kuwa ismada sheegta maxaan ku raadaay madax dhaqameedka sheegta ee beelaha ka soo jeeda gobolada waqooyi afkaarihii kala duwanaa ay ka bixiyeen intuba waxayna tusaysaa ama ay dadka tusaysaa sida aanu maxaan ku raadaay u kala qaybsannahay annaga iyo dadka Soomaalidiidka ah sida iyaguna ay u og yihiin waxa uu ugu shaqeynayaa inaanay wax jira ahayn sida ay u og yihiin inuu san metelin deegaanadii ka soo jeedo waa lagu ixtiraami lahaa hadii ay og yihiin inuu cid meel ka soo jeedo ama cid ka soo jeedo waxaan leenahay kuwa isaga iyo maqaamkiisa ah ee weli maxaan ku raad u sii marya xiran inay ku sii nagaadaan una sii adeegaan maxaan ku raahdaa afkaarta sidaas kii caaqilka sheeganayay iyo kii madax dhaqameedka ahaa iyo kii siyaasiga ahaaba waxa afafka uu ku hadlay aanu maqlayno waroy tanaa idin huran baanu leenahay weli waqti waxa jiri doonta naftu markay meelaha naxwal maridka soo gaadho lama aqbalo weli haddeer waqti yarba waqti baad haysataan ku go'aan qaata baan idin oran lahaa talada ummadiina iyo maamulkiina idinkoon cidna wax ugu dhimayn dad badan oo baan mararka qaarkood ka maqlaa magaalada Laascaanood horumar baa jira maxaan ku raahdaa iyo wadooyin baa la dhisayaa iyo arrimo sidaas runtii waa sax waa arrimo horumar waa jiraan laakiin horumarku xaggee buu ka yimid in la isweydiiyo aad bay u mudanta waxaan oran karaa jiritaanka halganka Khaatumo iyo maxaan ku raahdaa ilaa bilowgiiba ilaa SSC ilaa NSUM waxaan oran karaa bay ku yimaadeen maxaan ku raahdaa horumarka kan haddeerto dadka indhahooda u muuqanaya oo in badan oo ka mid yihiin uba haysato in Soomaaliland ay samaysay ama ay horumarka keentay warma keenin mid badan oo aad leedihiin bay lumisay Soomaaliland ama ay lunsantay ama ay had military u isticmaashay horumarka kan waa wax ka yimi international community waa wax adduunku u qoondeeyay in deegaanada lagu horumariyo oo aan oran karo percentage aad u yar wax mashaariic ah oo aan ogahay oo goboladaas laga hirgeliyay ilaa haddeerto wadooyinka yaryar ee haddeerto magaalada Laascaanood laga bilbilaabay mooyaan ma jirto waxaan oran karaa boqolkiiba 10 ma aha wixii international community ama adduunku ugu talagalay in deegaanada la geliyo boqolkiiba 15 ma aha baan soo oran karaa kelmadda ugu dambaysa ee aan rabo inaan hadalkayga ku gabagabeeyo ummadda reer Khaatumo meel kasta ay joogaanba dibad iyo gudo waxay noo ballana
midnimo iyo xorayn iyo midnimo inoo ballana waxaanu diyaar u nahay xoraynta midaynta fidinta maamulka iyo dhammaanba horumarka gobollada Sool Sanaag iyo Cayn oo ahayd intii aanu kitaabka ku marnay in lagu dhaariyay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.